أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada janaalka waxbarashada ee Ibre Solution insha Allah maanta hadduu alla idmo waxaa idin soo gudbin doonaa imtixaankii afka Soomaaliga ee sanad dugsiyeedkii 2020-2021 imtixaanka agaasimka gobolka ay qaadeen sanadii hore ardayay imtixaanka qaybtiisa hore wuxuu ka bilaabanayay wuxuu ahaa qaybta koowaad waxaa laga dhigay sheeko ciwaana lagu siiyey oo sheeka lagu soo qoray sheekadaas akhrine kadibna su'aalaha oo laga bixinayo aa ka jawaabay tan kalena fiiro gaar ah maadooyinka oo luqadaha horena waan ku sheegay sida Englishka iyo Soomaaliga iyo luqadda Carabiga imtixaamaadka badanaa waxay u badan yihiin naxwaha iyo sidoo kale sheeka lagu siinaa sheekadaas laga rabaa in aa ka baxsatid su'aalaha insha Allah video sidaas u dheeraana casharka bilaabanayna ay halmaamina inaad subscribe dhahdid oo like na aad saartid oo aadna u share gareysid asxaabtaada sheekada qaybta koowaad sheeko caqliga wanaagsan si degan u akhri sheekadan si aad u fahanto macnaha ku jira Kaafi waxa uu isu haystay inuu yahay nin taajir ah waxa uu haystay lacag badan adeerkii oo dibadda jiray ayaa lacag u ballan qaaday haddii uu keeno imtixaanka dhibco wanaagsan waxaa dhacday nasiib wanaag in uu fasalka ugu dhibco sareeyo markii uu adeerkiisa u diray email-ka ayaa adeerkii waxa uu ugu soo jawaabay in uu u soo diro lacag dhan $750. Kaafi waxa uu ku dambacsaday sariirtiisa isaga oo ka fikiraya waxa uu ku qabsan lahaa lacagta. Waxa uu ku soo gadan karaa lacagtaas kombiyuutar, raadiyo, rikoor iyo wixii la mid ah. Waxa uu ku soo iibsan karaa saacad cusub, dhar cusub iyo waxyaabo kale oo qaali ah. Waxa uu soo iibsan karaa 3 halaad. Kaafi ma doonayn geel, ma uusan doonayn inuu noqdo beeraley iyo xoololey midna. Waxa uu doonayaa in uu dugsi sare bilaabo oo wax barto, dabadeedna uu jaamacad aado. Markaas dabadeedna waxa uu bulshada dhexdeeda ka noqon doonaa nin magac leh. Kaafi walaalkii ka weyn ayaa u yeeray oo ka codsaday inuu eedadiisa gaarsiiyo fariin muhiim ah. Kaafi waxa uu ka booday sariirtii uu ku fadhiyay, dabadeedna waa uu isdejiyay. Waxa uuna yiri nin haysta lacag $750 ah sidee ayuu u qaadayaa fariimo oo uu meelaha u soconayaa. Waxay ahayd in uu walaalkii u sheego inuu yahay mashquul oo sidaa ka dhigto marmarsiyo. Maya, ma aysan fiicnayn. Waxa ay ahayd Kaafi in uu walaalkiisa ka weynaa aanu warka diidin. Ugu dambeyntii fariintii waa uu gaarsiiyay eedadiisa oo uu jeclaa ee uu ka heli jiray la joogeeda. Markii uu u socday gurigii eedadiis, orod ayuu ku maray jidka, laakiin markii uu guriga u sii dhowaaday ayuu bilaabay in uu u socdo si tartiib ah. Waxa uuna yiri nin haysta lacag dhan $750 ma ahan inuu u socdo si degdeg ah. Jidka ayuu waxa uu ugu socday sidii nin xaragoonayo oo kale. Waxa uu doonayay in uu qayliyo oo uu u sheego adduunka oo idil inuu ka fiican yahay dadka kale maadaama uu yahay nin taajir ah. Maya, taasi waa fikrad xun. Waxaa suuragal ah in uu lacagta wax ka siiyo saaxiibadiisa sababtoo ah waxa uu haystaa lacag ku filan qof walba. Waxa uu marti qaadi karayay saaxiibadii, dabadeedna qof walba waxa uu ogaanayay in uu Kaafi yahay nin weyn oo wax tara bulshada. Isla markiiba waxa uu gaaray guriga eedadiisa. Markii uu eedadiisa fariintii gaarsiiyay kadib, waxa uu ceshan waayay sirtiisa. Waxa uuna u sheegay eedadiisa lacagta iyo qorshayaasheeda uu ku fikirayo u sheegay.
qorshayaasha uu hayo inuu ku bixiyo. Markii uu damcay hadalkii ayaa eedadiisa ku qosashay oo ay weydiisay sababta qorshihiisa uu ugu dari waayay guri iyo xaas. Guriga eedadiisa waxaa joogay wiil kale oo Kaafi la dhashay. Waxa uu arkay Kaafi in walaalkii iyo eedadiisa ay ku qoslayaan. Maxaad ku samaynaysaa lacagta? Waxaa weydiiyay walaalkii. Waxa uu ku yiri Kaafi haddii aan haysan lahaa lacagta intaa la eg, waxa aan dhigan lahaa meel aan cidna iga taabanayn oo ay nabadgalayso. Kaafi waxa uu yiri xagee waaye meeshaas la dhigto lacagta? Walaalkii ayaa u jawaabay waxaa la dhigtaa bangiga. Kaafi waxa uu ka fekerayay arrintan, waxa uuna yiri laakiin haddii aan dhigto lacagta bangiga ma aan isticmaali karo. Qof ogna ma jiro in aan lacagta bangiga ii taal. Maxaa tiri? Lacagta adiga ayay kuu taalaa. Walaalkiisa dhahay waqtigii aad doonto waad isticmaali kartaa. Ka waran waxyaabihii aad ku riyoonaysay. Waxa aan u maleynayaa in aad doonayso in aad gasho jaamacad haddii aad hadda dhigato bangiga Islaamka. Waa ay ku kaydsamaysaa mustaqbalka. Geli weeraha soo socda xarafka muujinaya jawaabta saxda ah. Waxaa saaran 4 dhibcood. Sheekada hadda si degan u soo akhrinay. Waxaan rabnaa su'aalaha inaan xalino. Su'aasha koowaad waxaa lagu weydiiyay gelida. Kaafi waxa uu bilaabay in uu tartiib u socdo. Markii uu hayay jawaabteeda waxaa waaye ba oo ah guriga u dhawaaday. Su'aasha labaad waxa uu ka codsaday Kaafi in uu fariinta muhiimka ah eedadiisa gaarsiiyo. Yaa ka codsaday oo ah walaalkiis. Su'aasha saddexaad Kaafi waxa uu u haystay in uu yahay nin. Jawaabta waxay noqonaysaa waxaa laga rabaa meesha A, B, C laga rabaa laakiin ay dhaheen oo taajir ah. A, B, A dhaheen waxaa laga rabay C laga rabay taajir ah. Su'aasha afaraad Kaafi markii uu ka fekerayay waxa uu lacagta ku qabsan lahaa. Waxa uu joogay meesha joogo waxaa waaye ba oo ah sariirtiisa. Su'aasha shanaad Kaafi waxa uu jidka ugu socday sidii nin. Jawaabta waxaa waaye D oo ah xaragoonaya. Su'aasha kale oo lixaad wiilka waxa uu doonayay in uu adduunka u sheego inuu ka fiican yahay. Oo ah waxaa waaye jawaabta dadka kale. Su'aasha toddobaad Kaafi adeerkiisa waxa uu u ballan qaaday in uu. Jawaabta waxaa waaye C oo ah lacag siinayo oo u ballan qaaday. Su'aasha siddeedaad Kaafi lacagtiisa waxa uu ku soo iibsan karayay. Jawaabta waxay noqonaysaa ba oo ah kombiyuutar iyo raadiyo. Su'aasha kale oo sagaalaad Kaafi waxa uu ka fekerayay inuu noqon doono nin magac leh marka uu dhammeeyo oo ah jaamacadda. Su'aasha kale oo tobnaad Kaafi waxa uu u arkayay in hantidiisa u sheego dadka kale fikrad oo ah fiican. Su'aasha 11aad wiilkii taajirka isu haystay in uu lacagtaasi bangiga dhigto. Waxaa kula taliyay C oo ah walaalkiisa. Su'aasha kale haddii aan lacagtaas haysan lahaa waxaan dhigan lahaa meel fiican. Waxaa sidaas yiri Kaafi D oo ah walaalkii. Su'aasha kale 13aad Kaafi sirtii uu ceshan waayay waxa uu u sheegay. Jawaabteeda waxay noqonaysaa
xarafka D oo ah eedadiisa. Su'aasha 14aad ugu dambeyn, wiilku waxa uu aad u jeclaystay inuu lacagtiisa dhigto B oo ah bangiga. Su'aasha kale 15aad, taasi way sahlan tahay sida loo furan karo buugga bangiga. Sidaas waxaa yiri A oo ah walaalkii. Su'aasha 16aad, ciwaanka sheekadani waa, jawaabteeda waxaa waaye B oo ah caqliga wanaagsan. Inakeen hadda inta aan maskaxdaydu isbedelin. Sidaas waxaa yiri B oo ah walaalkii, Kaafi walaalkii asaas dhahay. Su'aasha kale, Kaafi in lacagta la kaydiyo waxaa baray B oo ah walaalkii. Tan kale oo hadda soo akhrinayna inakeen hadalkaasi alashan warqadaad soo qornayna kuma oosan qornayn, laakiin waxay noqonaysaa hadalkaas inuu dhahay Kaafi ama walaalkii dhahay, laakiin waxay u badan tahay inuu walaalkiisa dhahay maadaama fikradda asaga uu keenay. Su'aasha 19aad 18aad waa sheegnay walaalkii waa 19aad. Lacagta Kaafi loo soo dhiibay waxa ay gaaraysay, jawaabtu waa B oo ah $705 dhawaay. 750 ma aanay sax waa $750 waa D waa micnaa jawaabta. Lacagta Kaafi loo soo dhiibay waxa ay gaaraysay D oo ah $750. Su'aasha 20aad, Kaafi waxa uu adeerkii u diray jawaabta waxaa waaye xarafka E oo ah email. Asxaabta qaybtaani halahaas ku soo gabagabeynaynaa. Qaybta kale waxaa kasoo subinaynaa video labaad. Insha Allah waxaan filayaa inaad fahanteen. La wadaaga asxaabtiina.